بسم الله الرحمن الرحيم سيدان هore ugu furanay kitaabka quraanka waxaan halkan iskugu nimid furashada quraanka kadib in aynu xaflad aynu ku taageerayno maamulka Jubbaland iyo baarlamaanka Jubbaland go'aanka ay qaateen ee ku saabsanaa in mataqaanaa ay ka goosteen xiriirka dawladda federaalka ah wax wada shaqeynna ay hakiyeen kadib markii baarlamaanka federaalka uu ka soo saaray mooshin loogu magac daray qayle quute oo ogsoonahay sida uu ku ansaxay ee la leeyahay uu ku ansaxay si waxba kama jiraan inay tahay oo xitaa ay caddahay in kooramkii baarlamaanka uusan dhannayn oo aad iyo aad uu ugu fadhiyo go'aanka ayba tiigsanaya inay leeyihiin waa xalaal ama waa sharci inuusan ba sharci ahayn sababtoo ah in ma aragtay 120 baarlamaan ah la yiri way codeeyeen ka muuqatay xataa in hoggaanka baarlamaanka handadaad loo cadeeyay oo meel walba laga fiirsaday aana noqon karin wax ma taqaanay dastuuri ah oo uu yahay mooshinkaasi waxba kama jiraan sidaa darteed dadka halkan iskugu yimid oo ah dad aad u taageersan kana soo jeedo Jubbaland taageersanna go'aanka hoggaanka iyo baarlamaanka maamulka Jubbaland ay qaateen waxaan caawa halkan ku haynaa rag badan oo iyo dumarba oo ka soo jeedo Jubbaland doonayana in ay muujiyaan taageeradooda ay u hayaan baarlamaanka Jubbaland iyo maamulka Jubbaland labadaba kuna ay ma aragtay cambaaraynayaan go'aankii baarlamaanka uu soo saaray diyaarna ay u yihiin oo la garab taagan yihiin maamulka Jubbaland waxa la wixii wada tashi iyo ma taqaanay wada hadal ee dambe ee la furi doono dawladda federaalka in ay ma taqaanay ahaadaan kuwa ma taqaanaa aad looga fiirsaday oo aan lablakac ahayn waayo sida aan ogsoonahay Soomaaliya waxa ka hirgelay nidaamka la yiraahdo maamul gobol federalismka ka noqoshana malaha murankii waagi hore jiray ee ahaa federalism iyo centralized system nidaam dhaxo adag iyo maamul goboleedyo maxay ahayd wadanka ka abuurmo meel buu u batay waa inaga aragna hadda gobolada dhexe ayay ka socotaa dhismihii maamul goboladii maxay ahayd Jubba dhismatay koonfur galbeed baa dhismatay Puntland baa ka sii horeysay dadaalka mid hadda laga laaban karo ma aha wax kasta oo la isku dayana waxaan u maleynayaa inay waxba soo kordhinaynin sida daraadeed annagoo halka ka duulayno baa waxaan hadda soo dhaweynayaa Yaasiin Daahir oo ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada Leicester halkan qabyaalad la isugu iman dadku waxbay sheegaan ama wax kaleeto ayay u tarjumaan hadallada qabyaalad isugu iman goboladaas saddexda gobol oo maamulka samaystay oo raalli uga wada yihiin dad dhammaantiin dadka degan meesha ayaa la isugu yimid taageerada waxa kaloo la isugu yimid waxay tahay waxyaabaha qaarkood oo aan dastuurka la dhigtay oo u dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed oo loo wada dhammaa in maanta qodobadoodii wax laga bedbedelo oo waxaan jirin ama waxaan abuurmi karin oo qabyaalad ku dhisan oo ku dhisan nin jaceylsi oo ku dhisan gobol iyo waxyaabaha qaarkood lagula kaco waxaanu ka soo horjeednaa taasanaga Soomaali waa isku mid meel bayna dhammaantood waa Soomaali dalkana ma kala laha uma jeedno inaan dalka cid ka sheegano uma jeedno inaan Soomaali kala qaybino uma jeedno wax xumaan oo keeni kara oo dalka Soomaaliya dhexdeeda hase yeeshee waxaanu ka soo horjeednaa maamulka gobolka Baydhabo
waxyaabaha fidmada ah oo uu abuurayo madaxweynahooda iyo wax la midi taasaanu ka soo horjeednaa waxaanu ka soo horjeednaa xildhibaanada qabyaalada ku dhisan oo maalin qadiiska maalin qadayn ujeedada u jeeta inay maalin qadeeyaan baanu ka soo horjeedaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hadda ku wareejinayaa cabdi xakiim jaamac george oo ah activistayaasha magaalada Leicester walaalayaal marka ugu horeysa mahadidilkeed waxaa iska leh Allah subxaanahu wa ta'ala ali fursadda noo siimaanta inaan halkan isugu nimaano kadib insha Allah ta'ala waxaan u mahad celinayaa qabanqaabayaasha xafladda tan quruxda badan ee sida heerka sare loo soo agaasimay ee ah taageerada baarlamaanka Jubbaland iyo cambaareynta go'aankii waxashnimada ahaa ee qaadatay baarlamaankii Soomaaliya walaalayaal run ahaantii waa ayaan daro dowladdeena dhameed oo federaalka ah oo loogu talagalay inay wax dhisto in iyada ay hadda horseed inay wax dudumiso runtii Soomaali maanta waxay u baahan tahay wax la dhiso wax la dudumiyo hore looga soo daalay waa ayaan daro waxaan qaadan karnaa ma waxaan maqlin karnaa ma Soomaali waxay u baahan tahay dib u dhis waxay u baahan tahay heshiisiin waxay u baahan tahay dadka walaalaha in loo kala dab qaado ma aha wixii la dhisay wixii intaas lagu soo raayay in maanta maalin la yiraahdo waa duminayna waa nasiib daro shakhsi danaysanay inuu ku dunto dalkeena ma yeelino mana ogolaanayno insha Allah ta'ala mar walbana wanaaga iyo horumarka ayaa socona insha Allah ta'ala wax kasto la isku day in Soomaali maartay geeska lagu geliyo runtii way iska harayaan aad mar labaad mar saddexaad aad buu maasan yihiin qabanqaabayaasha sharafta lahaa xafladan soo qabanqaabi waana mahadsantiin insha Allah salaam bismillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وحنا لكن كسلام يا تدوينها شرفت له كسوق قبلي حلفدا أمر مناسبة لقد تاجريو مامولك يا برلمانك جوبلاند أنت كدب وحنو مهد علينا يا جالية Leicester iyo qabanqaabayaashii soo qabanqaabiyay xalfadan aadka u quruxda badan ee sida wanaagsan loo agaasimay waxaan leeyahay walaalayaal waad ku mahadsantihiin waxaana sharaf ii ah aniga oo ku hadlayo magaca jaaliyadda Jubbaland iyo Finland inaan idin kala soo qayb galo xalfadan quruxda badan waxaan halkan ka taageerayaa anu halkan uma istaagin hadal badan waxaana noola sheegay in waqtiga uu gabagaba yahay waxaan halkan ka taageerayaa baarlamaanka Jubbaland waxaan u taageeraynaa annaga oo ah dadka ka soo jeedo deegaanada Jubbaland sababtaan u taageersanahay waxa weeye waxa loo soo qabanqaabiyay ama qaabkii loo ankumay baa wuxuu ahaa qaabkii aan weligan ku taami jirnay haddaan nahay reer Jubbaland nin walba iyo deegaanku ka soo jeedo inuu ku yimaado weligan ma aanan rabin haddii aan nahay dadka reewaamaha ah ama reer Jubbaland cid kale inay namatasho ama xoog iyo qabqab noogu timaado waa markii ugu horeysay ee aan jaanis u helno ama ilaahay nasiib noo siiyay inaan noqono Soomaalida dadkii ugu horeeyay ee qaab deegaana isku doorto ahaanta waxa qaylinayo ma aha dadkii deegaanada ka soo jeeday ee gobolada saddexda ku dhashay waxa qaylinayo waa dad ama 4.5 u bartay ama meelo kale ka yimid ama ku waayay oo ku qaday qaabkii xaq ahaa annagana de dhulka Ilaahay baa nagu dhaliyay sida rabnayna Ilaahay uu noo yeelay Ilaahay baa mahaddaale alxamdulillah rabbil caalamiin baarlamaanka federaalka waxaan leeyahay markii horeba ma ahayn baarlamaan lagu soo doortay qaab deegaan mana isu dhigmaanba labada baarlamaan waa baarlamaan deegaan ku yimid iyo baarlamaan qabiil ku yimid reebel iyo reebel oo bar ah waa afar iyo bar qaab baarlamaan ku yimid waana qaabkii loo soo doortay qaabka ay yaani u fikirayaan qaabkaas loo soo doortay nasiib darradana waa mid ay Soomaali ka shaqeysay
ama dhibaatadii aan soo marnay noo geysay iyo taariikhdii madoobaydan soo marnay ayaa faraha noo gelisay 4.5 haddana nin walba wuxuu ka raadinay qaabka dee nin marka horeba loo soo doorto loogu yeeray kaale ree hebel matal haddana meesha ree hebel unbuu u fadhiyaa wax dan uu ka leeyahay malaha haddii meeluusan u dhalan la weydiiyo ama la yidhahdo maxaan ka yeelnaa laakiin waxaan xasuusinaynaa inay yihiin dad Soomaaliyeed baarlamaan federaal ah baarlamaanada la midka waa kuwa America iyo Europe iyo EU-da ku jiro sidoo kale inay u dhaqmaan at least inay guddi u diraan inay xal raadiyaan laakiin waxa marqaati idinka filan inay yihiin baarlamaan yani federalism ah ama ummad matali karo videogi laga soo duubay oo ay miisaska ku taagnaayeen oo ay mataqaanaa ninkii gudoomiye ku-xigeenka Jaylaani faraha ula tageen isagiina markii doonno aragna uu yiri bes waay bes iga baxa waa la dhan yahay marka wax noocaas uu ahaa wixii dhacay waan ka xunnahay Jubbaland waxaan leeyahay iyo maamulka Jubbaland oo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam hogaaminayo dadka doortay dadka jecel dadka wata indhaga aaminsan inta danaheena ay ka shaqeynayaan waan aaminaynaa waana daba soconaynaa anigu hadalka aan ku dheeraanaynin mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin jaaliyada Leicester iyo UK-ba waxaan salaamayaa dhammaan madaxdeeda iyo odayaasha sharafta leh halkan ka soo qayb galay rag iyo dumarba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه آد بعض ما هتصنتهي ولال قدوميها جالية فنلان عبد الولي قاسم جابو آد بعض أقوم ما هتصنتهي إرياض هذا كان كسو جيدسي آد بنا كاجم هاد علينا إيه كان وحن وجد بين عبد الرشيد داهر أحمد وأحد قدوميها جبلان جالية جبلان ayaan halkan ku soo dhaweynaa laba qodob oo kooban baan halkan kaga hadlayaa anigoo ku hadlaya codka jaaliyada inta mooshinka baan ku horeynayaa moshinku muxuu ahaa in la isweydiiyo horta ugu horeyso marka hore moshinku ma banaana wax qaban kara ama loola iman karo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya ma aha su'aasha horta in la isweydiiyo ka horeyso waa maya jawaabtu sharci ma aha dastuurka ummadda Soomaaliyeed qof walba waa yaqaan waa la akhriyay luqadda Soomaaligu ku qoran yahay meel ay kaga qoran tahay maanaan arag baarlamaanka Soomaaliya intuu istaago inuu codeeyo oo uu dhaho nidaamka federalismka oo ogol qodobkiisa 49aad laba gobol iyo wixii ka badan ummad waxay ku heshiisay oo maamul goboleedyadu ay ka mid ka yihiin qodob sheegaya maanaan arag baarlamaanku inuu ka codeeyo oo dhaho mooshin maan u qaadnay waana kala noqonay codkanagi meel ku taal ma jirto marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa Soomaaliya waxa ku haray dad yar oo aad u kooban bay hadda fidnadii ama rabshadii ay ku soo hadhay baarlamaanka oo dhan ma aha dad yar oo kooban oo nidaamkii 4.5 ka ku yimid oo aan deegaan ku imanin oo cabsi ka qaba bari markay noqoto one man one vote inuusan meel uu ka soo baxo uusan haysanin oo argagaxa nooca qaba weeye waxaan barnaamijkan hadda wada waa dhinaca baarlamaanka xagga maamul goboleedyada lama dhigi karo maamul goboleedyadu way wada fiican yihiin dhammaantood Shariif Xasan raggii ugu horeeyay oo lagu martiqaadan kamid ah anigu soo dhaweeyay waagii la doortay shacabka reer koonfur galbeed hadda lafteeda aan kula taagnahay baan aaminsanahay waana garab taaganahay maamulkoodana waan ku faraxsanahay balse Shariif Xasan dadka yar ee kooban oo fidnada ah oo Soomaaliya ku soo haray buu kamid yahay anigu marka aan soo dhaweynayay xilliga ayada waxa aan soo dhaweynayay ma ahayn Shariif Xasan ma ahayn waxa aan soo dhaweynayay wuxuu maamulka koonfur galbeed saddexda gobol shabeellada hoose baay iyo bakool dadka ku nool maadaama ay ku ragaaday dhibaato qodo dheer leh oo aan laga sheekeyn karin in ay ka baxaan oo ay ka tashadaan arrimahooda iyo mustaqbalkooda ayuu ahaa ma ahayn Shariif Xasan inta markaan ka gudbo Shariif Xasan waxaan leeyahay loo ay niman ku soo fulin doonin niman ku soo fulin doonin yuusan ku aroorin macnaheedu waxa weeye 2016 ka loolal ayaa jira isaga iyo waxa ku loolabaya muxuu ahaa Jawaari waan ognahay hadda waxay isugu tagaysaa qof walba iyo deegaan Jawaari
sidaan la soconno wuxuu u dhashay deegaanka koonfur galbeed laakiin shariif xasan ooma dhalanin xaqiiqada marka laga hadlo wey mana haysto meel uu ka soo baxo ma haysto taa macnaheedu waxaa weeye in wax badan laysdaba mariyo kadibna lagu looltamo 2016ka koonfur galbeed yaa ka soo baxaya taa weeye macnaheedu taa markaan ka gudbo qodobkayga kale wuxuu noqonayaa gudoomiyaha baarlamaanka jawaari saan la soconno gudoomiyaha jaaliyadda Finland baa hawshaas carabaabay adduunkii waa one global way maanta caawa wixii laga sameeyo China qof walba waa ogyahay baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka koobaad Jilaani baa hogaaminaya maalinka ayada waan la soconnaa waxaan ogayn in uu yiri 102 xildhibaan ayaa meesha fadhiya markii la qasbay oo la yiri ilaa barnaamijka isaga waa inuu fulaa ba haddana wuxuu yiri 142 codaysay laba waa ka aamustay laba waxaysay bahalkii qaab noocaas cid walba way arkaysay waa haddii xitaa la dhaho moosinku qaabkee buu dhacay inagoo og inuusan markii hore sharci ahayn waxaan markaa leenahay dowladda federaalkii waa baabuur 4 taayir ku taagan wey taayiradii bay ka mid tahay Jubbaland Puntland koonfur galbeed kuwa kale imanaya qof baabuur 4 lugood lug laga saaray kaxayn karaa inaguma jiro qofku waxa uu wax ku yahay oo legitimate uu ku yahay ama jawaari ha noqdo ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud ha noqdo oo ama ha noqdo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid waa nidaamkan federaalka wey war federaal muxuu yahay federaal waxa weeye ummad waxay samaysatay oo ay ku heshiisay oo ay raalli iska tahay wey nidaamkii nooca ahaa wuxuu ina farayaa in la sameeyo maamul goboleedyo ninka marka maanta dhahayo mooshimaan ka qaadaya maamul goboleedyada that means madaxweyne goboleedka iyo madaxweynaha Soomaaliya isku sharci bay ku fadhiyaan xaqiiqada marka laga hadlo wey cidii wax garanaysa inta wixii ka baxsan cidii la timaada waa fawdo Soomaaliya maanta fawdo diyaaro ma aha 6 bilood baa ka hadhay 2016 nidaamkii road mapkii loo socday in ummadda Soomaaliyeed lagu hogaamiyo waa gaabaabsi haddii ay jirto in baarlamaanku khaladkiisii uu dib uga noqdo waxaan baarlamaanka u sheegayaa inay isku dayaan inay wax yabyabaan oo 6 bilood ay kaga guulaysaan oo ina ka ahayn in la isugu yeero maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliyeed loona kala sameeyo nidaam road map oo u kala sheegaya inta laga gaarayo muxuu ahaa 2016ka wixii iyagu ay ku kala socon laayeen waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo waqtigii ku dheeraaday guddigii maalinkii dhaweyd 2 jeer madaxweynuhu wuxuu ku celiyay saan la soconno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud hayda jeceli beerka jeceli ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid isagu wuxuu sheegay sidoo kale laakiin in la taakiidiyo heshiiskii u dambeeyay oo maamul goboleedka Jubbaland uu kula galay muxuu ahaa caasimadda maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo ila tixraaca isagoo reference ka dhiganaya barnaamijkii communique ay soo saareen international community waxa marka xaqiiqa oo aan waan dhihi lahaa hadda markaan dib u fiiriyay waxa soo dhan xitaa waxa buray oo xitaa hadda aan shaqaynaynin heshiiskii ra'iisul wasaaruhu kula galay Jubbaland magaalada Kismaayo right now xitaa ma shaqaynaysan anigu aaminsanay sababtoo ah dhinaca kale marka laga fiiriyo hay'adda sharci dejinta ee ugu sarreysa Soomaaliya waa baarlamaanka madax meel ka sarreyso la salaaxa ma jirto Soomaalidu kuma maada ninka ugu sarreeyay hadii uu ku tuntay nidaamkii dastuuriga ee ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay macnaheedu waxa weeye wuu burburay marka waxaan dhihi lahaa arinta ayada waa in dib loogu noqdaa oo road map loo kala sameeyaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya si loo gaaro hiigsiga 2016 aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan ku soo dhaweynayaa Mukhtaar Cabdullaahi Sahal wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha waxaan aad u salaamayaa odayaasha gabdhaha dhalinyarada aqoonyahanka iyo dadka sharafta leh ee xafladda soo qaban qaabiyay bal horta aad u salaamayaa salaan kadib runtii waa xaflad aad u qiimo badan weeye waa xaflad aad ku taageeraysaan maan filayaa
xildhibaanadii la sameeyey ee mataqaanaa barnaamijkii dhammaystirka ahaa ee Jubbaland aad ugu tala gasheen inaad ku taageertaan oo ku muujisaan taageeradiinna aad ku cambaaraysaan mooshin ku sheegii mataqaanaa baarlamaanka Soomaaliyeed uu ku khaldamay ee Jubbaland aad ku cambaaraynaysaan runtii hadda inaan afkanagu ku soo maro mooshin iyo mataqaanaa barnaamijkaas oo aanu ka xishoonaynaa Soomaalidu waxay tiraahdaa habar waalatay aleela ku waalatay ma ahayd habarta xaawada qaaday mataqaanaa mid kale ku dartay baarlamaanku hawshiisii uu gudan waayay baarlamaanka Soomaaliyeed oo aan ognahay siduu ku yimid inaan la dooranin inaan ma garanaysaa la soo magacaabay odayaal ay soo magacaabeen haddii xitaa si kale loo dhigo baarlamaanka Jubbaland xubnaha soo galay tartan bay galeen xubin kasta oo Jubbaland oo baarlamaana 3 ruux oo kale oo tartan la soo galay oo odaygiisu ma garanaysaa soo gudbiyay baarlamaankan Soomaaliyeed waxaa loo askumay wuxuu ahaa saan aaminsanahay waxay ahayd inay Soomaali gaarsiiyaan 2016 inay gaarsiiyaan oo dastuurka wixii dhimanay dhamaystiraan oo dib-u-heshiisiinta si wadaan buu barnaamijkoodu laakiin hadda inay Soomaali boolis ka noqdaan waxa weeyaan waa arrin aad murugo u leh baarlamaan aan ognahay inuu sagaari karin ma garanaysaa loo yacado oo sagaari karin ma garanaysaa meesha Liaborame oo laascaano waxa ka socda oo sagaari karin oo gobolada dhexe iska hadli karin inuu ka hadlo ma garanaysaa Jubbooyinka runtii waa asaf waxaan leenahay shaqadiisa baarlamaanku ha dhamaystiro shaqadiisa inta ka dhiman ha dhamaystiro awlahan uu ku jiray mataqaanaa lagu burburinayo baarlamaanka Soomaaliyeedna ha ka baxo wanaagana iyo mataqaanaa irshaadkiisina dib ha ugu soo noqdo intaas kadib runtii aad baan waad ogtihiin maamulka Jubbaland mowqifku ka qaatay hawshaas iyada dadka reer Jubbaland mowqifka ka qaateen way arkaysay waa daawanayseen si cad bay u diideen wax alla wixii wanaagana way soo dhaweynayaan hawshoodana way wataan kalsooni bay ku wataan marka runtii waxaanu intay dhaheen ma dhahaynaa mar labaad intay dhaheen reer Jubbaland maamulkoodii iyo shacabkoodii ma dhahaynaa ku taageersannahay waxa weeyaan ma khusayso Jubbaland hawsheedu ma khusayso baarlamaanka hawshiisu waa sharci dejin iyo barnaamijkii dastuurka ay dhimanay qabyada dhamaystirkiisii hawshiisa ha noqdo hawsha Jubbaland ha u daayo dawladda iyo dawlad goboleedka jirta ee shacabka jira ha u daayo yaa la qasin horumarka iyo mataqaanaa hawsha socota yaa la qasin maaleenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan soo dhaweynayaa xubin baarlamaanka Jubbaland xildhibaan Qureesho Jubbaland baarlamaankeeda waxaa lagu doortay si xaq ah waxaa lagu doortay deegaan laguma dooranin 4.5 nimankan qaylinaya waa raggii ku faa'iiday 4.5ka 4.5 bay ku faa'iideen marka waxay rabaan in maaragtay la raaco jadwalkii isaga ahaa baarlamaanka Jubbaland waxaa lagu soo xulay deegaan waxaa soo xulay salaadiintii Jubbaland min Dolow ilaa iyo Raskamboni salaadiintii waa laga wada keenay waxay isugu yimaadeen Kismaayo iyagaa soo doortay waxay ku soo doorteen si deegaan ah ninka rabay muxuu ahaa inuu lagu soo doorto 4.5 taa Jubbaland way diiday waxayna maaragtay Jubbaland go'aansatay in lagu daydo baarlamaanka Jubbaland si lagu soo xulay in dhammaan lagu soo xulo baarlamaanada soo socdo qaab deegaan in loo soo xulo Jubbaland baarlamaankeeda waxaa lagu soo xulay 3 qof tartan baa lagu soo xulay sida walaalkay sheegay muxuu ahaa Mukhtaar agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga sidii uu sheegay waxaa lagu soo xulay 3 qof 3 qof way tartameen suldaanku wuxuu soo qoray 3 qof tartan bay ku imaadeen ruuxii markaa ku soo guuleystay ayaa maaragtay meeshii maaragtay la qaatay
marka baarlamaanka Jubbaland kuma imaanin sida ay ku imaadeen kuwan waan ognahay waxa ay yihiin waan ognahay sida ay ku imaadeen waan ognahay waxay ka shaqeeyaan waxay ku shaqeystaan mooshin wixii loo igmaday iyo barnaamijyadoodii loo igmaday ee wadankan inay ku hogaamiyaan dimuqraadiyad muxuu ahaa federalism loogu talagalay waxay u bedeleen mooshin ka guur mooshin u guur waxaan la soconnaa dhowr mooshin inay hadda soo wadaan min madaxweyne ilaa ay cunug caloosha ku jira mooshin bay ka soo wadaan oo waxay rabaan mooshinka inay maaragtay ay ku cimri dheereystaan waan ognahay kuwa mooshinka keenay waa kuwa maaragtay baarlamaanka aanan lahayn meel ay ku noqdaan meel ay u noqdaan oo marjac u ah waa baarlamaanka duu kala tago nin walba gurigiisa iyo qoyskiisa buu aadi qolada aanan meel ay ku marjac ku noqdaan aanan lahayn iyo qolada og inay dib u soo noqonaynin kuwaas way kuwa maaragtay mooshinka ku laabmahay Soomaaliya inay iska hor keenaan rabo sida awgeed waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ha ka tashado ma gaarsiinayo higsigii loo socday ee ahaa 2016ka ee la rabay Soomaaliya inay one man one vote u guurto uma socdaan waxay rabaan in la iska daba wareego oo marba mooshin hor la keeno qas uu ku dhaco wadanka oo maaragtay uu baabo higsigii 2016ka taa waxaan ku taageersanahay go'aankii ay qaadatay Jubbaland madaxdeeda iyo dadweynaha Jubbaland markaan runta idin sheego Jubbaland dadweynaheeda wax u dhaxeeyo oo xumaan ay male wax maaragtay buuqa oo ka taagan dhulka male aniga hadda ka imaaday wax ka taagan male markaan magaaladan imaaday ama aan soo galay muxuu ahaa UK aan soo galay waxaan la kulmay waxyaabo aan wadankiiba maaragtay aan laga aqoonin wadankii uu horumaray wadankii ma garanaysaa waxa ka jira muxuu ahaa barwaaqo aad u badan ma rabo inaan sidii maaragtay Jubbaland Soomaalida waxay ugu soo ordayeen oo leeyihiin Jubbaland waa gobolka ugu barwaaqo badan waxay u soo ordayeen waxa waaye Soomaaliya waxaan leeyahay nin walba buucad yareed Ilaahay uu ku dajiyay meeshaada degano buucada Ilaahay ku dajiyay iimaanso Jubbaland wax ka soo jira male hadda deegaan tahayna welcome oo diyaar baa lagu yahay haddaadan deegaan ahaynna ma buucada Ilaahay uu ku dajiyay haday tahay dhagaxa iimaanso waxaan rabaa inaan muxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Ilaahay baa madaxweynihii Soomaaliya ka dhigay markii lagu dooranay Soomaaliya oo way ku soo dhaweysay ninkii ku nacbaa iyo kii ku jeclaa hadda maanta madaxweynaad u tahay madaxweynaha waxaan leenahay hadalkiisa iska maaragtay iska daba noqon hayo ha cadeeyo madaxweynaha waa madaxweynihii Soomaaliya dastuurka inuu ilaaliyo Ilaahay baa maaragtay madaxweynaha aga dhigay ummadan Soomaaliyeed dhammaan Ilaahay baa madaxweynaha aga dhigay ha cadeeyo hadalkiisa yuusan gagabanin yuu ka cabsanin muxuu ahaa nimankan mashquulitayaasha ah waxaan madaxweynaha aan u sheegaynaa annaga madaxweynaheena waa tahay waan ku jecelnahay laakiin haddaad kuwa aad muxuu ahaa aad ka amar qaadanayso oo aad hadalladooda dhagaysanayso haddii annagana waan kaa tashanaynaa waxaa noo dhexeeyey wuxuu ahaa sharcigaa noo dhexeeyey sharcigii haddii aad ku tumataan hadda nin walbaba muxuu ahaa gurigiisa ooda ha ku soo jiito nin wax maaragtay markaa biyo laga cabaay ma jirto haddii kalena aan si wanaagsan oo maaragtay sidoo dastuurka wadanka uu qabo sida federalismka waa inaan maaragtay aan ku soconnaa oo madaxweynaha uu nagu hogaamiyaa waxaan rabaa inaan u sheego Shariif Xasan aniga dadkii kugu soo dhaweey Kismaayo ku jira aad baan kugu riyaaqnay ma aha riyaaqana adi ma ahayn adi kuguma riyaaqaynin muxuu ahaa nidaamkii ka dhashay koonfur galbeed baan u riyaaqnay oo aan muxuu ahaa taageeraynay taasaan kugu soo dhaweynay inta joogtana dadkii muxuu ahaa ku adeegay oo ku qadimay baa ku jira aniga waxaan leeyahay Shariif Xasan waxaan leeyahay Shariif Xasanow
maalintaad soo gashay siyaasadda ilaa yawmina hada maalinnan wax nabad ah oo ummadan Soomaaliyeed u wanaagsan kama shaqeyn taariikhda Soomaali way ku ogtahay wayna ku taqaanaa Soomaali way ku ogtahay wayna ku taqaanaa waxaan ku leeyahay hilo walba waad ka cabtay hiladan waa hiladii ay yaxaasib ka qaaday hilo walba ka cabtay tan waa tuu yaxaasib ka qaaday ha ku talagelin oo ha ku muxuu ahaa inaad ma aragtay saa doonto isaa Soomaali u gali jirtay aad ka samaysto Jubbaland ha ku talagelin marna gudoomiyaha baarlamaanka waa gudoomiyihii muxuu ahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha markii muxuu ahaa lagu doortay professor Jawaari markii la dhahay Soomaali xogaa ididila gasho waxay isdhahdeen nin wanaagsan oo muxuu ahaa aqoon leh yaa wadankii muxuu ahaa ka noqday muxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaan laakiin sida aad u dhaqmayso ma aha si wanaagsan waxaan ka sugaynaa inaad wadankan aad muxuu ahaa wax badan aad ku soo kordhiso laakiin wadanka waxaad u wadaa meeshii ugu hooseysaad ku wadaa waxaan ku leenahay annagu waxaad ma aragtay noogu tahay gudoomiye baarlamaanka Soomaali ugu tahay waxaad ugu tahay sharciga haddaad garamato federalismkii haddaad garamato wuxuu qabay sharciga haddaad garamarto hadda nin reebaydhabo baad tahay baydhabo baad ku noqonaysaa reebaydhabo baad ahaanaysaa intaasaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته xildhibaanada aad bay u mahadsan tahay erayada ay soo jeedisay iyo fariimaha ay dirtay aad bay ugu mahadsan tahay kulley way dhageysan doonaan waxaana filayaa inay mataqaana ay ku waana qaadan doonaan haddana waxaan soo dhaweynayaa maxamed xasan xaaji dhammaantiin waxaan idin salaamayaa ka soo qaybgalayaasha xafladan munaasabadan maanta loogu talagalay in lagu taageero haddii bidinkas leeyahay baarlamaanka Jubbaland iyo go'aanadii uu ka qaatay baarlamaanka dhexe aan ka filayn inuu Soomaali hogaamiyo iyo waxa magaranaysa ka soo yeeray sida iyaga hor imaadeen iyo sida magaranaysa 6 Juun uu u sheegay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Fartaag sidoo uu sheegay in laga bilaabo 6 Juun 2015 wixii ka bilowdo inayna dawladda dhexe wax wada shaqeyn la yeelanaynin taas aanu ku taageernay waan ayideena go'aankaasi maxaan ku raadayay waanu ayideena waa go'aan mataqaanay xaq ah in haddii dawladda dhexe nidaamkii bimacnaa laga rabay ummadda inay ku hagaan laga rabay iyo shuruucdii haddii ay daba maraan waa xaq in laga goosto in dawlad kasta maamul kasta ee maamul goboleedaha jira ee state ah jira in ma garanaysaa ay ayahooda ka tashadaan in maxaan ku raahday maamulkooda ay wataan waa arrin xaq ah dawladda baarlamaanka dhexe xamar waxay noqotay meel hadda bahal galeen ay noqotay xamar waxay noqotay meel Soomaali laga dumiyo ay hadda noqotay intii Soomaali duminaysay ayaa xamar iskugu tagtay hadda runta idin sheego inta Soomaali ma garanaysaa qabla dagaal aha wax waliba aha dad qarata aha ayaa iskugu tagay meeshii waxay doonayaan inay ummadda Soomaaliyeed ee tashatay oo ayahooda ka tashaday inay haddana burburiyaan ayaa xamar ma garanaysaa ku hadda talaabada ay wadaan waa taas weeyaan inaan waxba la dhisan karin inaan maxaan ku raadaaye inay dudumiyaan baarlamaanku waa sharci dejintii dalka way marka baarlamaanka barna inuu sharci dejiyo uu yiraahdo waxa la dhisan karaa maxaan ku raadaaye maamul goboleedyada waa xaq laba gobol iyo wixii ka badan inay dhistaan marna uu yiraahdo waan duminayaa labadaba asaga laga hayaa baarlamaanka waxna uu duminayaa marna waan duminayaa marna way dhisayaan marka xasan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya markii uu furayay baarlamaanka Jubbaland ee Kismaayo u yimid ee uu magaranaysa ansixinayay wuxuu yiri maha goof ninkii kule baa meeshan wax kule ninaan goof ku lahayn iyo sac uu maalo aan ku haysan Jubbaland shaqo kuma laha marka dadka gobolada kale ka soo duulayo goboladiina dhista tanna ummadda deganeed iyo dadkii shacabka iska lahaa dalkan ha loo daayo ayaga dhisanay ayahooda ayaa ka tashanay waana tashteen Jubbalandna way soconaysaa waana soconaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن عيال يا مروين وان السلام عليا بعد السلام وحيان ماشا كورن لها بان نسي قد بهيا وحان سلام عليا وكالي مدن عياشن لابا xubnood oo dawladda Jubbaland ah nala joogo ayagana waan salaamayaa ka soo qayb galayaashii iyo kuwii xafladan maamulay sida noo soo dhaweeyay noo yeeray na soo dhaweeyayna waan salaamayaa walaalayaal dawladda Jubbaland baan ku horeynayaa Jubbaland way dhisantay way dhaqaaqday mana soo noqonaysa insha Allah isku dayayaasha meelaha ka dhaadhaalaynayo ama Yurub ama Mareykan ha noqoto ama gudaha Soomaaliya ha noqoto horta waxa la yaab leh oo aad oo la yaabaa meeshan yaa laga qabsaday markii la qabanayo Jubba hadda 2 sano iyo bar meelahaas laga jooga intii laga qabsadayna waa la garanayaa dawladda Xamar laga bilaabo madaxweynaha ilaa xafiis boyga kolba waxay isku dayahayaan wada kale oo ka soo galaan meel laga soo gala kolba isku dayahayaan kol qabiil baa lagu soo galahayaa hadda waxaan arkayaa Hiiraan shir baa ka socdo maxay ahayd meeshii kale cadaada miyayd cadaadana shir baa ka socdo nimankii dhaadhaa meelaha kala ahaa ee Jubbaland baa laga haystaa lahaa shirarkaasaan ku arkayay haddana aad baa loola yaabay warkan soo kiin meelaha ka dhaadhaalaynayay maaha oo haddana cadaadaan u dhashay buu leeyahay haddana Hiiraan baan u dhashay buu leeyahay war imisa meelood buu dhashay waxa weeyo maalin walba ilaa madaxweynaha way isku dayaan wayna ku fashilmaan adduunyada soo dhaxgasho oo yactiraaho meeshan dawladahan way og yihiin ingiriiska ciddi meesha ugu yimid wuu og yahay talyaaniga ciddu meesha ugu yimid wuu og yahay kuwa meelahan qurbaha ka dhaadhaalaho laybareeriyada taga soo akhrista laybareeriyada yaalaan Jubbaland cidda leh laybareeriyada yaalaan ka soo akhrista ninkii qoray gacantiisa ku qoray laybareeriga dhigay baa doonaysan inaad wax u sheegtaan idinku aqligiina seetiin waxa weeyo wixii kale ka hadli lahaa oo dhan waa laga hadlay intaasaan ku soo gabagabaynayaa iyo taageero dawladda Jubbaland maamul ma waa dawlad way tilaabsatay السلام عليكم ورحمة الله waxaan celinayaa dadkii soo abaabulay shirkan ama ururkan aynu isugu nimi oo sida sharafta leh ee qiimaha leh uga soo shaqeeyay aad bay u mahadsan yihiin inta kadib shirkan aynu isugu nimi waxa weeye wixii aynu dhisannay inagu aynu samaysanay baynu ku taageeraynaa waxa weeye Jubbaland dadkan iyaga maalkooda maskaxdooda cilmigooda aqoontooda iyaga ku dhistay baarlamaankan qaylinaya iyo dadkan qaylinaya ninna uma dhisin marka waxa weeye maadaama aynu nahay dadkii dhiigooda iyo xoolahooda iyo maalkooda galiyay inaynu inta kaga hadhin weeye wixii socdo baynu la socono marka hawshan inagu soo korodhay waxa weeye Jubbaland baarlamaankeedu waxa weeye inaga dhisnay ninna ka bariimayno ninna ka waxayn mayno ninkii motion geenaya ninkii wax keenaya isaga u taala Soomaaliya sharci iyo nidaam iyo federaal iyo dastuur baa jira hadii la xaq dhowri waayo Jubbaland ma xaq dhowriso laakiin Jubbaland waxay ku dhisan tahay oo ay taageeraysaa oo ay ilaalinaysaa dastuurka Soomaaliya u yaala sharciga jira wixii lagu heshiiyay bay daba taagan tahay laakiin hadii iyada lagu dhibo ku jiri mayso waxaana u muuqataa hadda waxyaalaha socda in farakale ku jiraan oo dastuurkii laga gudbay sharciga iyo nidaamkii lagu heshiiyay laga gudbay hawlo kale oo meel ay ka socdaan ay soo bixi doonaan waayo waxa hadii waqti la siiyo meesha ka socdaan iyo sida u socdaan waa la ogaan doonaa laakiin maadaama atiin dadkii iyagu waxa samaystay oo dadka hadda waxa sheegayaan gudiin samayn waxaan ku kalsoonahay maamulka iyaga jira ee dhisan inuu gaarsiin doono
sidii aan u doorannay inay ku gaadhsiin doonaan oo ay u wadi doonaan u ilaalin doonaan sharciga iyo nidaamka iyo dastuuriga aanu leenahay annaguna taasaannu idinku taagannahay idinku taageeraynaa aanu halkan isugu nimin aanu idiin muujinno taageeradayada iyo inaannu idinla soconno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta meesha isugu timi waa idin salaamayaa salaam bacdigeed waxa weeye sideeda waxaa loo hadlaa maxaa haray hadal xigmad hadduu leeyahay horaa loo yidhi waxaan ku darayaa keliya waxa weeye anigu deegaankaan ahaa waana la yaqaanaa nin qarsoon maahi nin deegaanka u dhashay baan ahay siyaasaddana wax kaga jiray baan ahaa wixii dalka ka dhacayay goobjoog baan ka ahaa waxaan aad ugu dadaalaynay oo aniga aan ragga horseedka ka ahaan ka mid ahaa in dawladda iyo jubbaland oo markaasi aan dhisnayn dawladda iyo raggii meesha madaxda ka ah inay isfahmaan oo wada shaqeeyaan waxaa lagu guulaystay taariikhda markayn dib in yar ugu noqonno halkaa in dawladda iyo isfahmaan iyo jubbaland inay isfahmaan baa lagu guulaystay markii ugu horraysay shirkii Addis Ababa lagu soo heshiiyey wixii ka dambeeyey jubbaland si daacada ayay u shaqaysay si daacada shir looga yeero ay ka baaqatay ma jirin meel looga waxay goobjoog laga wada ahaa oo in la dhammaystiro howlaha hadda la qabtay oo baarlamaanka ah ayaa ugu cuslayd iyadana si qurux badan oo aan runtii inta Soomaaliya ka soo bilow raas aseer ka soo bilow ilaa raas Kiamboni maamulka qaabka loo dhisay baarlamaanka meel loo dhisay ma jiro waxay ahayd meel lagu qaybsaday si xalaala lagu qaybsaday waxaan anagu u qaylinayna aniga deegaankan waxaan u qaylinayna war deegaanka ayaan laga sabadsan yaan deegaanka laga sabadsan waxaan hadda aan hubnaa oo ay muxuu ahaa xildhibaanadayada marqaati ka tahay ayadu waa deegaan Quraysha deegaanka maanta baarlamaanka tiradiisa marka la qaybiyo saddex meelood loo qaybiyo laba iyo dheeraad wada deegaan arinta ayada anaga waa ku kalsoonnahay inta aan deegaanka ahayn ee hadday 20 sano meesha deganayd ama ku soo qaxday hadda dalkooda idinka ka soo qaxiyay xaq bay u leeyihiin meesha inay wax ka helaan taawada waxaan markay idin sheegayaa annaga hadda dalakan baan joognaa xaq baan la siiyay 5 sano xaq baa lagu siinayaa marka gabadhii ku dhalatay inay xildhibaan ka noqoto Kismaayo ku dhalatay ee gurigeedii ku noolayd xamar laga soo qaxiyay wax u diidayaa ma jiraan ku buuqay aqalka baarlamaanka Soomaaliya oo ah inaysan aqoonsanayn waxa ka soo baxa oo ah inaysan ahayn dad jira oo ah inaysan ahayn wax dastuuri arinta kale aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye Jubbaland aniga maba mudna in hadda la cambaareeyo nimanka waxay soo saareen sababta wuxuu hadaysan dastuur ahayn maba jiraanba wax kalena waa inii sheegayaa toddoba meeshin oo ay qaadeen oo aan waxba ka jirin baan inii sheegayaa waxa weeye waxay sameeyeen dekada shirkadda haysata waxay ka keeneen mooshin wax lama gelin karo ha laga qaado aeroboortka waxay yiraahdeen ha laga qaado ururka hooyooyinka gabadha haysata ha laga qaado yiraahdeen taliyaha ciidanka ha laga qaado yiraahdeen waxba kama fulin marka waxay rabaan bay sameeyaan waxaan rajaynaynaa Jubbaland inay hore u socoto ilaahay inuu garab galo dadka deegaanka oo degan oo wax qaybsaday oo xalka sidaa mooday ilaahay horumar ha siiyo ilaahay dambigooda ha dhaafo innaguna wixii khayr oo ay sameeyaan baan ku gargaaraynaa wixii cadaalad darraa iyo wixii xaq darraa waxaan leenahay madaxda ugu sarreysa si asluuba cadaalad sameeya ilaahay ka baqa saasaan leenahay waxaan ku darayaa ugu dambeyn jaaliyadda halkaan joogta waxaa loo baahan yahay waddanka Soomaaliya in aad Jubbaland u istaagtaan inaad waxa la qaban kartaan la qabataan inaysan ini walwal gelin aniga inaan raalli ahaada waxaan ahay jaaliyadda Puntland waxaan garanayaa 20 heshiis oo dawladda federaalka ay nala gashay oo waxba ka jirin waxa marka waxba kama jiraan waxay gaaraan iyo waxay gaarinba marka dhoon wareeb wada hore u socod assalaamu calaykum warahmatullahi shacabka Soomaaliya nabadgelyad iyo wax walba fiican markuu muujiyaa jeclaanay annuka meesha saarane barnamaankana si wanaagsan oo sharaf leh xaq buu ku dhismay
war barlamaankan odaygan uu joogo jawaari laleey iyo qayli quutay iyo waxanay iyo qarraflaynay war ma shaqay qabsadeen wadanka ka waayeen war qofka wax buu xishooda war ma xishoodaan miya war miya muslim ahayn war miya ilaahay ka baqayna war qurbo waa ku raagnay waa ku daalna waa ku dhimanay wiilashayna xabisyaha ka buuxa intee maanta dhihi lahayn ummadda Soomaaliyeed hal isku keeno oo xamar iyo Jubbaland hal isku furo ee meeshii maxay ka rideen buuq iyo qayli iyo mooshin baa ka keenay war shaqay qabsadeenay waayeen ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto maxaa dhanbaal u diraya inay waxan intan tuugada oo barlamaanka fadhido oo adduunka qasayso inay ilaahay naga qabto horta taas aamiin dhaha midda labaad kale isbaara waa laga bixi waa laga weynaaday 2015 mar hayna 2016 u gudbi hayna waxanay madaxweynaha meendhuhu la xasan sheekh uma jeedo miye madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo jecelno uma jeedo miye waxan ma arkay miye jeesow iyo hebelow war jeesow naftiisu ka adkaan waayo wax laga sheekayn karin ku waxaan leeyahay horta hore waa salaamantihiin dadkan xafladan quruxda badan soo diyaariyay ee reer Leicester iyo marti sharaftaba waxaan ka oranayaa hal kelmad baan oranayaa horta hore Jubbaland waa gobol ama maxaa la dhahaa magaalo madaxa aad noogu weyn dadka ka soo horjeeda oo dhahaya ma doonayno Jubbaland maxaa la dhahaa inay maxaa la dhahaa baarlamaankeedu hagaaga horta hore waa khasaareen waxay la tahay inay waqti isaga dhumiyeen Jubbaland waa taaba qaaday waana tagtay soo noqon mayso ilaahay idinkiis meel fiican bay higsanaysaa dadka waqti isaga dhumiyo waxay ila tahay inaad ka toobad keentaan Jubbaland maxaa la dhahaa horumarkeedii wanaageedana aad ku ammaantaan shukri aad bay u mahadsan tahay haddana waxaa inoo haray oo ku soo khatimaynaa qofkii ugu dambeeyay ee ka soo jeedin lahaa kelimad waa Khaliif Sheekh Yuusuf oo ah diblomaasi Soomaaliyeed oo arrimaha geeska Afrika ka socda aad ugu xog ogaalsan haddana aad arrimo macnaha xasaasi ah ama diblomaasi geeska Afrika ka socday nooga xog warrami doono السلام عليكم مروين يا مدنيال سلام ساليا والعلماء أيان السلام يا reer Jubbaland waa dad walaalo oo wada garanaya oo wada dhalay oo wada garanaya nin walbana meesha uu bixiyo waa la garanayaa waxaan leenahay dalka sidoo uu dhismi lahaa sidii dawladda loo adkeysan lahaa sidii la isugu samri lahaa inaynu ku wada dadaalno ka qurba joogta ayaana looga baahan yahay nin walba wixii uu karaankiisa ah inuu dalkii geeyo ninkii aqoon haya ninkii lacag haya ninkii waaya aragnimo kala haya dalkii waa inaynu tagno in intii loo qorax doonto caanaga laga soo cabeeyo kalluun laga soo cuno la iska soo laabto ma aha taatayno mataqaanaaye himladeenu taas ma himladeenu waxa weeye wadankii inaynu tagno wadankii aan dhisno la tago waxa kaloo idinku darayaa haddaad taa samayso waxaa xaqiiqa xoolana waa laga heli oo ninkii biibita yar furta lacag buu ka dhargayaa ninkii taxi la tago waa waxa uu yar weeyaan lacag buu ka dhargayaa marka waa shimbir laba dhagax ku dil weeyaan waxa weeyaa adigoo wadankaaga wax tara oo infrastructure-kii iyo economic mataqaanaa growth-kii ka qayb gala iyo adigoo haddii ilaahay kuu samoogol yahay naftaada mataqaanaayay hanti u yeesho walaalayaal markaa anoo idinka mahad celinaya dhegayskaad dhegaysteen waxaan aad iyo aad aan mataqaanaa idinka codsanaya in dalka dhismihiisa laga qayb galo bismillaahi raxmaani raxiim waxaa halkan maanta iskugu yimid dhammaan culamaauddiintii aqoon-yahaniintii odayaashii nabadoonnadii salaadiintii oo halkan aan ku martiqaadnay maanta magaalada tan Leicester xalfad ballaaran oo lagu taageerayay Jubbaland ee ka dhacday meeshan waxayna ku soo gabagabowday guul iyo midnimo iyo taageero weyn oo loo hayo dawladda Jubbaland wabillahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim wala jeedada oo shirka maanta waa mid aan ka simannahay maqofkiisa raggi horena uu hadle wax badanna waa laga hadle inta badanna way hadashay sida u hadasheen baan ka simannahay laakiin dadka intay baarlamaan lahaayeen ama magac baarlamaan ma dhihi kari
waayo baarlamaanka siduu ku soo asaasmay cid walba way garanaysaa baarlamaan Soomaaliya lagu soo dhaxdhisay maahan Naivasha lagu soo dhisay iyo Nairobi dibaddeeda dadkan taariikhdiisa intay garan lahaayeen sida u soo mareen maanta si kale u hadli lahaayeen waxa ogaateen qayla qoostay jawaahirina intuu dhow Jubbaland laga saaro meesh motionka intuu iska wareejiyo ku xogeenkiisa inuu geeyo gadaalna ka soo maamulo xasan sheekhna uu ku raacay marka meesha wax dhigatan iniga inii taala ma aragtay xamar Soomaaliya oo dhan uma talinayso nin walba gobolkiisa way Soomaali dhaxal isku imaani siyaasadda fahma meesha wax u socdo fahma Soomaaliya sharfa wadanka sharfa dhulkiisa sharfa ciidiisa sharfa si ilaahay waa kuroonaa wax walba sharfa dadkana la qabsada salaamu calaykum waxay ugu horeyntii aniga waxa la yiraahdaa Cabsaaq Xaaji Cali waxaan ahay jaaliyada macnaheedu reer Birmingham baan ka imi marka halkan waxaan u nimidna waxa weeyaan sidaan u taageeri lahayn ama go'aankii maamulka Jubbaland khaasatan waxaan aad u dhaliilaynaa waxa weeye nimanka xildhibaanada ahaa oo maandhaweetay intay isku tageen golihii shacabka ummadda Soomaaliyeed yiri macnaheedu ma aqoonsanayno arrinta raalli kama nihin waa ka soo horjeednaa kumana qanacsanin annagu waxaan soo jeedin lahayn waxa weeye inay wixii dhacay way dhaceen inay dib ka waantoomaan oo ay dib isku noqdaan oo dib u xishoodaan ayaan leenahay waliba rag yar oo rag afar ku tirsan baarlamaanka dhan maaha oo rag yar oo kooban weeyaan oo waxa ay doonayaan aan garanaynin weeyaan oo habeen iyo maalin labadii sano Jubbaland taagneydba habeen iyo maalin meesha ka qaylinaya waxaan ka codsanaynaa waxa weeyaan inay xishoodaan wax isku falaan anagu ma doonayno si dharka u dhigteen inaan la dhigano ma doonayno halka waxaan uga baxayaa waxa weeyaan rag odayaasha ah ee xildhibaanada aanu waxaan leeyahay shacabka Jubbaland habeen iyo maalin waan taageersanahay anigu bishii February baan waxaan tagay Jubbaland baan tagay aad iyo aad baan uga soo helay horumarka ka socda marka waxaan leeyahay shacabka Jubbaland weligiin macnihii halgankiina iyo qadiyadiina horumariya cidnaba ha u joojinina waxaana ha u dhigina waxaan leenahay Jubbaland ha noolaato waxaan leenahay habeen iyo maalin Jubbaland ha noolaato waxaan kala u mahad celinaynaa dadkii shirka soo qaban qaabiyay oo wiilal iyo haweenba isku jiraan khaasatan ninkan odayga ee aagteeda taagan aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa iyo waxaan idin rajaynaynaa guul iyo bisha Ramadaan kariimna waa idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah Thank you, brother. waxaan filayaa wixii xigmad ahaa ee loola jeeday dhulkaas jubbooyinka inkastoo kadib dhacay shirka waa la sheegay marka ugu horeysa horta waxaan salaamayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo dhammaan mas'uuliyiin madaxweyne ku-xigeenada koowaad iyo labaad iyo golayaashooda waan salaamayaa iyo dadka Jubbaland ku nool ujeedada weyn aanu leenahay aanu shirkan ka lahayna waxa weeye awalan inaanu taageero halganka iyo kacakufka lagu samaynayo halganka ka socda Jubbaland ee la isu soo bahaystay ee la doonayo in labada lowna loogu dhufto dhulka haddaan reer Jubbaland arrintaas aanu ka dhiidhinay oo aanu taageero isugu nimid halkan hase yeeshee waxaanu u sheegaynaa Jubbaland biidnillaahi tacaala way soconaysaa ma kufayso waxaan anigu farta ku fiiqayaa golaha baarlamaanka ee Soomaaliya waxaan intooda badan farta ugu fiiqaynaa inay yihiin golo aan mudnayn inay ummadda Soomaaliyeed ay mas'uul ka noqdaan waxa loo idmaday waxaan ahayn bay ku shaqaynayaan ummadda Soomaaliyeed qayb badan oo kamid ah waxay rabaan inay dib ugu celiyaan qisadii foosha xumayd ee wiilasheenii iyo aabbayaasheen iyo guryaheennii iyo qarankeenii dumisay ee 91kii waan ka digaynaa mar labaad dad sheeganaya magaca baarlamaanka ayaan weli ka toobadkeenin dagaalkii 91kii oo doonaya Soomaaliya inay reer isugu celiyaan una dhadhamila qarannimadii ummadda Soomaaliyeed in dib loo soo celiyo aad iyo aad baanu arrintaa uga digaynaa ma doonayno inaannu magacya halkan ka sheegno laakiin waa calaamadsan yihiin dadka doonaya Jubbaland in ay sameeyaan duulaan qarsoon oo isbahaysi ah halka qodoban doonaya inaan farta ku fiiqo waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa Jubbaland Soomaaliya oo dhan bay ka dhaxaysaa waa run Soomaaliya oo dhan baa degan laakiin Jubbaland dad baa iska leh warkaa waanu cadaynaynaa Jubbaland dad baa leh
dad baa deganaan jiray 91kii lama imanin Jubbaland sidaa hal la ogaado ninka jooga Zaylac iyo ka jooga maxay ahayd inta ka sokaysay waxay yiraahdaan waxaanu ka hadlaynaa Jubbaland waa qiso yaab leh oo aanan fahmi karaynin laakiin hadda way soo cadaanaysaa isbaahiyadii ugu dambeeyay markaanu aragno aad iyo aad baanu arinta uga digaynaa waxaan kale oo ku soo gabagabeynayaa oo mahad u jeedinayaa soo qabanqaabiyaashii xafladan qiimaha badan ee reer Leicester gudidii la shaqeynaysa aad iyo aad baad u mahadsantiin iyo dhalinyaradii iyo dhammaan jaaliyada Leicester Cabdiwali Rasaas number 1 ka yahay aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin idinkuna waa mahadsantiin TV-ga iskugu timid oo ahaa inay garab taagan yihiin dawladda Jubbaland iyo baarlamaanka Jubbaland iyo maxay ahaday waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo dhammaan dadka reer Jubbaland in ay macnaha halkan ka soo cabireen waxaan filayaa gabagabeyntii in maxay ahaday lagu dadaalo sidii loo adkeyn lahaa dawlad goboleedka Jubbaland sidii loola garab istaagi lahaa sidii walaalkan hadda ka dhawaajiyay xagga horumarka iyo adkeynta amniga oo aad iyo aad muhiim u ah iyo in la helo sharci iyo kala dambeyn oo ay macnaha ku howlanta hadda dhismaha xagga maxkamadaha iyo maxaabiista sidaan aragnay xabsiga ugu horreeyay waa la dhagax dhigay maxkamadahana la adkeeyo waddankana lagu soo dabaalo nidaam iyo kala dambeyn oo booliskii la tababaro oo maxay ahaday aqoon macnaha garsoorkii la dhiso oo shuruucdii iyo ku dhaqankoodina la hergeliyo waa sidaa iyo maxay ahaday bay noogu dhammaatay wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkana waa noo xiran yahay